السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waa salaamay dhammaan galaba joogteen. Waxaan isku dayaynaa sida ugu wanaagsan inaan waqti siino fursadaheena maalinlaha suuqa iyo qaabka markaa ay muhiim noogu yihiin. Marka muhiimadda aan lifeka usoo furno mar walba waxaa waaye inaan wixii fursad ah maalinlaha aan waqti siino, wixii kaloo aan isleenahay waa macquul ayagana aan isla dulmarno haddii ay noo noqonayso fursad sax ah. Marka qof walba iyo waxaan ka rabaa focuskiisa inuu bixiyo oo ah mas-uuliyaddan inuu dhankiisa ka saaro. Okay, waxaan isla daba maraynaa fursadihii shalay maxay ku dhammaadeen, xaaladahooda maxaa isbedelay, sidoo kale maxaa maanta fursad ah noo jiro. Okay, sidaa shalay update idinku siiyeyno, aniga lacagan tiragaree shantan ay kusoo harin. Okay, shantan DXY ugu horeyso Euro USD, GBP USD, CAD USD, JPY. So xaaladaha soo socday muddadan aan focuskeena iyo nidaamka aan ku tirigareyno waqti badan aan siin doonaa waa shantaas. Okay, wixii kaloo oo ayagana aan dib ka aragno inay volatilekooda fiican yihiin lacagaha kalena kusoo darsanayna, laakiin just let's keep focuskeena shantan aan siino. Ma trade haddaad tahayna waa aaminsanahay inay kaa badan tahay hal lacag xataa haddii aad dadaalka iyo kalsoonida aad siisid. Haddii codkayga lama qadaayo iyo wixii fikir ah, su'aal ah iyo aragti ahaan ah, let me know. Waan ii soo qor haddii codkayga clear ma yahay, hore waa u socon karaa soo waan ii soo qor. Qofka dhahay sorry, thank you so much. Qofka dhahay USDJ by Bible ila fiiri oo ma USDJPY in lagula fiiriyo iyo inaad fiirisid inaad fiiriso may wanaagsan tahay sababtoo ah adaa laga rabaa systemka inaad taqaanid. Muhiimadda ah. Okay, anaga shalay waxaan qaadanay haddii aan isku dayo inaan xasuusin yara aan isku siino. Shalay waxaan qaadanay lacagta CAD JPY. kolay videoga wuxuu yaalaa everyday sidan oo kale marka u duubo waxaan iga soo dhigaa qaybteena Discordka iyo YouTube-kaba meel walba aad kala socon kartaa. fursaddeena fursaddeena waxay ku saabsaneed correctionka shalay. Okay, dhalinyarta lacagaha aan listi ugu jiran isoo dirayso iganaan laquma fiirin karin, mana rabo inaan fiiriyo sababto aniga shaqadeena waxay tahay waa tan aan waqti siin. Okay, shalay waxaan kula tagnay fursadaheena CAD waa inay ahayd live dii aad la socotiin, sidoo kale USDJ waa inay live ahayd. ugu dambeyn dadkaan ka lahayn waa ka gaarnay ilaa loogii hoose sagaashanka biil si qurux badan aan ku qaadanay CAD JPY. sidoo kale USDJ na la mid ahayd waa tii aan sheegay 24 hours ay ku qaadatay inay full TP siiso. haween arbacay soo gelaysa halkaas ka qaadanay. Okay, maalin arbacahayni khamiis saaka ah ay targetkaan siisay waa just 24 hours ahaynay. Euro USD ayadana waxay ahayd lacag kaloo aan isbuuca fursad ka qaadanay oo aad iyo aad ayadana u wanaagsaneyd laakiinkeena qayb weyn ka ahayd. hadda marka haddaan kow iyo labo aan dhaho fursadda hadda right now aan rabo inaan live ka dhigno waa lacagtan Euro USD iyo mar kale. Okay, Euro USD iyo mar kale. So hadda waxay ku imaaday qaab institution sell ah. marka expectationkayga ma ahayn selkan inaan baygareeyo reverse kalan sugayn haddii ay noo sameyso daqiiqadahan ugu soo aadan halkaasaan bay qaadanayna anigoo targetkeena ugu horeeya uu ka noo noqon doono. Okay, anigoo targetkeena ugu horeeyo I think soddonka bib SL-keenana at least 12 bib xataa naga badan. Okay, 12 bib xataa naga badan. So marka Euro USD saakan analyze gareeyay markii landa session ahayd shiftigaan messagekan sugayay inay noo sameyso wuu nagu dheeraaday laakiin waxa ay high on hour ah ma sameyn. Okay, sababta raga kali waxaan ka samri karnaa markuu high caadi toos ah sameeyo. Okay, soo laabashadan si toos ah u imaado qaabkay ku imaaday ku laabatay is very aggressive. So aggressive kaas aan rabaa inay in yar one more time
sell soo aado soo laabo kan kadib aan buy qaado. Okay, so that's my recommendation iyo aragtidayda ayad baan waqti siinaynaa. Allahu musta'aan. So let's keep going. So yeah, marka euro USD hadaan ku hayna ayada hadda noo soo dhow kolley. GBP haddaan dul maro xaaladeeda iyo qaabkay u baxday si la mid ah waxay la fikir ahayd eurada. Marka labadooda midkood ayaan waqti siinaynaa. Eurodana noo fiican qaabka ay u socoto. Haddii tan ay soo laabato la mid ah fursad kaloo buy waa qaadan karnaa. Qaab news ah ay ku imaaday suuqan ilaa zonka la geen karo free levelka naga sareeyo waa kuwan. Okay, free leveladan ayaa naga sareeyo in lasii geeyo waa macquul. Free levelka hadda waa la joogaaba laakiin kan haddii laga sii gudbo maybe kuwaan shishe buy kusii dhahna waa haynaa in at least ka roon 1 hourka inaan demandka saxda soo helno. Okay, so meesha hadda ka laabatay haddii haaga ay qaadi weysay micnaheeda waxay tahay balancega shalay laga tagay oo bagan awoodda badan uu ku dhaqaaqay in dib loo soo selgareeyo waa macquul. Space badan oo marka sal lagu soo qaadan kara halkaa ku jiro. Dadka scenario 3 trade gareeya ana scenario 3 ma trade gareeyo laakiin dadka trade gareeya awood ilaa salka lagu soo qaato way yeeshaan. يعني وان دعك دعوانا شلكان. بس سبيس كمش كجرو سبيس كمش هذا الشيء سبيس ساس لغة ترى معها has to recover إنه دي بسوا أستور. Okay, so that's the فكرة في good. So مركا يورو USD أيام هذا الثلاث ودي بيننا let us أيضا وقت ينسينا أيضا أنفق سينا صلاة كي صلاة وانتو دي مركي صلاة وانتو وحي confirmation أهلو عن سلفيرين دونا. mar badanna waxaan ku celiyaa fikirkeyga suuq buy inaad qaadatid iyo sell inaad qaadatid behind like mentally ayaa ka awood badan suuq markii loo fiiriyo inaad sell iyo buy afurtid. sababtoo experience trader hadda haddaad tahay kaba soo qaad dadka caadiga suuqa bartay istaraatiijiyadda bartay yaqaana ee qofka suuq muddo badan ku dhex jiray oo waxyaabo badan bartay fikir ahaan markii loo fiiriyo xataa right now hadda ku dhaadhigayso ana USD inaan buy qaata xataa ilama saxnada like fikirkiisa sida tusaa iyo experience ahaan. Yes, rules were rules laakiin qaabka MSS kan ku dhaqaaqay waxay markaan ku test gareeyay already meesha marka wuxuu ka sameeyay inducement. Okay, like ma si judge gareynay suuqa wuxuu sameyn doona I don't know laakiin fikir ahaan qaabku suuqan ku dhaqaaqay MSS kaasi wuxuu ku fashilmay high hore inuu qaado. So kani marka wuxuu noqonaa automatic inducement. So marka si aan uga badbaadno inducementigan aan suuqan aan ugu khasaarin markaan buy qaadano hal shardi u baahanahay. Salkan hadda soo laaban doono aan rabin inaan buy ku qaadano kan soo laaban doono wuxuu ku imaan doonaa 1 minute. 1 minute kiisoo la joojin ha qaadan very clear hadalkaasna meel ku qor. 1 minute kan oo la joojin haddiiba ay soo laabato lacala day saas ku tagtaa deeba haysa sono hadday soo laabato nidaamkaas u baahana entry scenario 1 qolf badan aan halkan yaala kii hore qaab news u imaaday dadka newsida trade gareeyna please ilaaliya dadka newsida soo intuusan news soo bixin trade horfura be careful. Entry scenario aan inta badanno trade intuusan news soo bixin xaaladiisa iyo nidaamka order flowgiisa baan qadarina mahane news saameynta suuqa ku lahaan doono iyo sida u shaqeyn doono iyo qaabka u shaqeynayo balse dheeraad u baahan tahay. Okay, focus badan ay u baahan tahay. News soo baxay saameyntiisa
newsyada qaar saameyntooda bil ay joogaan bil ay ahaan karaan like news maanta soo baxa waxaa laga yaabaa inuu isbuuc soo socdo saameyntiisa toos u yeesho suuq ula wareego news hadda soo baxaa laga isla saameyntiisa inay hadda dhalato news qaaro waxaa laga yaabaa soo socdaba saameynta in la sii sameeyo there's three ways newska uu suuq u saameeyo dadka qaar like calendarka markuu soo baxayo bisa muhiim ah ma aha calendarka newska markuu soo baxaayo oo selmas baa yahay uu suuq markaas reaction sameynayo mise volatile sameynayo micnaheeda maaha saameynta newska inay intaas bis tahay saameynta newska waxay raagi kartaa mise ay joogi kartaa isbuuc dhan like mase newska intuusan soo bixin ka hor suuqa saameyn sii yeelan karaa oo lasii ogaan karaa marka waxaani waa nidaam banks ay ku shaqeeyaan institutionka isticmaalaan adiga waxaa kaaga roon cilmi noocaas dheeraad hadda u baahan tahay yes course badanaa lagu bartaa nidaam badan fundamental loo bartaa jiro course ani hadda inaan laba erey ka dhax kusoo koobmaya maaha dadka fundamental analyska ah nidaamyada ay wax u akhriyaan iyo qaabka ay suuqa u joogteeyaan technically way ka baaxadweyn tahay okay technically way ka baaxadweyn tahay dadka fundamental iyo technical isku yaqaano oo inta inaad ku jira one on one ma ka xirtaa hadday ii gaarto mase waa siyahay maxamed haddaa ku jirtidoo newska weekend qaadatay su'aal aan dan muhmo laakiin kolay heeso because waxaa u xirta hadda ma wada suuqa ma wada dhaqaaqin hadduu dhaqaaqeen muxuu dhaqaaqay wax toban bii wada dhaqaaqay toban bii ma suuq ku xiray ilaa haddaa soddonkaa bii heeso okay haddaaba gashay haddaadan gelin ani camal aad sugaysin aan sheekaysan haddaaba ani camal aad tahayna aan sheekaysan wax kale faa'iido muhiimadda aan ka hadlaya waxaa marka dadka fundamentalka obsesska ku ah oo isku dayayaan fundamentalka inay suuqii la wadaan qof fundamental trader ah technical waa ka wen yahay okay marka haddii marka fundamental trader aad inaad noqotid oo isku daysid inaad labadaba isku manage garaysid waxaa jiro economically inaad maskaxdaada ahaato okay mar badanna cashiraha ka bixi fundamentalki koorsooyin aan wax ka tataabti way jiraan like that's a quarter waxa idin baray okay a quarter amu xdxy markay baahi tahay maxay USD sell u aadaa because correlation waa isku lacagaha correlation waa like opposite isku yihiin waxa la trade gareynaya USD iyo DXY so DXY dollarka u taagan tahay hadda sida aad markii eurada baay obvious taas qof walba fahmi kara okay so haddii marka fundamentally art inaad suuqan fahamtid ustaad marka analyze-ka dhamaysid golden no fear aba mahadsan bay ayaa ugu jira jazakallah maxamed axmed qof walba oo gold trade gareeyo qof walba oo crypto trade gareeyo qof walba oo feature index trade gareeyo aniga ha igu daaran baasha okay baashan daday saaqadaan waa sunta oxygen oo kale waay okay so marka aniga ha igu daaranina aniga chatkeega shantan ka badan haddaa ku aragtid anaa khaldan haddaa adiga leedahay analyze garayna waxaan kuu sheeg waa been sababtoo focuskeyga iyo niyadeeda ma ugu jirta okay so marka gol haddaa baa ugu jirtid heeso haddaa sil ugu jirtid heeso because aniga professionalnimadeeda gol soo loo analyze garay smart money trade haddaa tahay way ka buuxdaa sida kuwan oo analyze garay loo analyze garay laakiin waxaan diidanahay mentally community-ga inay ahaato dad dollarka bes trade garay inay soo xiraanaaraan haddii marka adiga aad naga baxsatid meelo kale arrimo kale ay interest aa aragtid just to do it because qof walba suuqan soo galo lacag uu rabaa lacagta haddii xagga gold aa ka samayn kartid ka samey haddaa currency-dada ka samayn kartid ka samey meel kale laakiin anoo hasan adoo hasan gold up ma rabo inaan kusoo darbistigin xataa haddaa lacala ku aragtaan maybe qof kaloo chatkan isticmaalaya xaafadda jooga kusoo darsaday so anna markaan life kasoo gala daarka horaa ka delete garayna sababtana ma ahan inaan gold aan u diidayo dadka sababta aniga ma ahan professionalnimadeeda inaan gold analyze gareeyo mise aan qof kula taliyo waayo adiga choicekaaga hadduu yahay aa ka heshay uu kuu baxay khayran aniga laakiin maayo sababtan waxaa waaye just let me focus hal shay inaan diiradda saaraan jeclahay aragti ahaan taasa isbedel markaan arkay inaan samayn karo taasaan ku dhiiraday so idinkana kulley saasun baa idinka rajeynaa okay marka maxamed axmedow igaraal noqo jazakallah ilaa khayr kusiyo adigana focuskaaga samayso gold because I don't mu rabo inaan
so euro gb card list ha shalay ka bixiyay euro card gb card list shalay ka bixiyay update ka shalay ku jirtay youtube kan soo dhigay waxa uu saareen waxa waaye still direction code ay ka saxmayaan at least ilaa iyo march siinayna january february ma ayna tirir garay bishan 3 bilood aan rabaa inaan ka gambiyo labada lacagood sababta kuwan hadda volatile leh kuwan aan waqti siinaya okay marka dhalinyarta aan rabo waxa waaye hadalka muhiimadiisa aan rabo inaan wado trade ama tahay ha suuqa marta inay ku jirtaa visa system oo qof walba rabo usbuucan keli 6 trade afaat waxaa la marayaa I think khamiis jimcaha iyo dhiman halkal waa ka gaarsiin karaa 7 trade haddaa usbuuci 7 trade mise 6 trade mise 5 trade aan heli karo is no way intaas wax ka badan u baahana 5 trade oo aniga systemkeyga ah haddaa heli karo quality leh 70 aan ka qaban karo daa 10 bib lacag badan ka sameeyo haddaaba 70 bib 15r 13r 13r 14r aan qaban karo wax igu raraya culayskaas isaaraya ma jirto inaan lacag badan tirgareen mise lacag aniga aan qusin inaan list ku soo darso okay taasi waa cabdi hore noo wadunay okay marka dhowr hal qodob aan inaan ka hadlo hadalladii insha Allah aan rabo inaan ka jawaabo oo ah dadka fundamentally rabo inay suuqa fahmaan faham fundamental is me much or calendar news soo baxay way ka weynta news kan oo soo baxay kaliya wuxuu ka caawinayaa saameynta markaas inaad ka badbaadi لكن fundamentally dadka barta suuqa fahmaa oo fundamental ahaan u barta iyo dadka technically barta dadka fundamental ka marwal update ah horeeya oo og suuq wuxuu sameyn doono saacadaha maalmaha ugu soo aadan economic dhaqaalahaas saameyntu leeyahay retailkaas waxaas diblaanay isku celceli like this qofkaas qof ka horeeya uu og yahay systemku wuxuu sii sameyn doono laakiin macnaheedu maadaama uu systemkiisii ogahay ka taajirsan yahay may because suuq waxaa la isku dhaaf waxaa waaye suuqa full time job iyo suuq waa isku dhex wadi waaye maxaa tala saqan cadaala what will I do garantaa lagu siinaa marka qofka rabo marka suuqa inuu sii ogaama inuu ka cilmi badan yahay mise kaa sii og yahay waxa la isku dili waxaa waaye the right time and the right moment the right time and the right place waxa la isku dili suuqa wax kale ma jiraan waxa lagu dilaa suuqan lacag qof uu ka sameeyo oo qofkan kale uu ka sameeyay waxa waaye the right time waxa la dhahaa xilliga saxda ah suuqa aad geli kartid xilliga saxda ah ka bixi kartid antaas la isku dili so fundamentally kuma sheegayso xilliga saxda ah suuqa galaysid xilliga saxda ah ka bixisid maybe xilliga ka bixis inay ku sheegtaa laga yaabo maadaama miisi soo socdo saameyn noocaas inay jirto laga yaabo aad suuqii kasii baarandigi karto laga yaabo laakiin fundamentally kuma sheegayso xilliga saxda suuqa la galo technical ku sheegayso waxaan rabaa inaan fahamto waxaa waaye dadka fundamental bartaxda oo ka horsan oo rabo inay suuq haya inuu si sameyn doono xataa weysi ogyihin waxay ku leeyihin wiilka soo socda key level kaasaa loo socda they know but where to enter ayaa kuu sheegama meesha suuqa sell iyo buy laga dhahayo technicalna kuu sheegaysa so marka labada hadda isku darsatid well and good haddii hal ka mid aad ku tirargaraynaysid oo fundamental bis aad ku tirargaraynaysidna you need more than waxa u baahan tahay cilmi ka weyn waxaan yaala forest factory iyo website-da fudud waxyaaba yaala ka weyn u baahan tahay so I think hadalkaas waa clear so ani that's why ay u arkin aydan dhahay forest factory markaa tag newskaas soo baxayo halas ilaaliyo oo saameyntaas jirto macnaha waxa ula jeeda adoo intii haysan leh suuqa ku sii jirin like suuqiga qamartamin oo suuqiga ku degdegin leh ka wada maahane adoo intii haysto oo suuqiga technical sell iyo buy meesha ka galaysa suruuda system ka haysto news waxba kaama gelin ana hadda ku dhahay because newskaas waxaa laga yaabaa tirka inuu ku dhameystirmaado okay haddii aad dhahayd fundamental aan baranaya oo calendarkaas timeka newska soo baxayaan rabaa inaan fahmo si aan suuqiga markaan tirkaas qaadanaya u ogaado yes taas good way fiican tahay sababtoo newska saameyntu saacadaas ku soo baxayo suuqan ka warhaynin uu kuu noqon karaa more volatile adoo sel qaadan lahaa suuq hal mar boodaya sida hadda daba aad taaganahay euro USD like nidaamkay ku imaaday maaragta like haddaan meelaha jirtay wiilkaasaa lagu imaaday intriga saasuu ku dhaqaaqay that's marka waxyaabay kaaga digayso laakiin haddaa tahay qof SMC trader oo entry modelkan aan ku shaqaysid newska asaga kuula jiraayo hada asagoo suuqi buy ugu jirto news kuu soo baxay buy inuu kuu sii waday u badan tahay okay it's not must u badan tahay 90% so like that's how probability in nidaamkan ku shaqeyno
marka euro USD-na gilbi trade toddobaad uu ii noqonaya yani ahaan hadda haddii aan helo ilaa maqribka saacadaha nagu soo aadan uu selka noo soo sameeyo. Marka is just all about let's be qofku ka focus badan yahay, ka samir badan yahay, patience ka leeyahay, risk managementkiisa ilaaliya, suuqu wuu joogaa, lacagna wuu sameynaa. qofku ka dulqaad yar yahay, ka like focuskiisa uu yar yahay, iska mahsan xaaladihiisa iyo nololeed iyo suuqii rabin isku wadana suuqa ma joogaya waa kasii baxa. Intaas la waayo laba wadaa jirto mugtahay, wada A iyo mid B la dhahaa jirto. B-na shaqo la sameeyaa jirto lagu aado, A-na shaqaa jirto lagu aado. So adiga shaqadaa la imaado buu suuqa ku siinaya technically iyo fundamentally iyo aqoon iyo system wax hal mar la barto buugooda la laabo wax hal mar in la barto buugooda la laabo laakiin wax ku daba soconayo mar walba ku daba taagan waxaa waaye adigii iyo shakhsiyadaadii iyo suuqiyaa marka dagaal diyaar waa like inay xifaaltanaa. haddii aad suuq ula imaadid wixii saxda ahaa adiga saxnaa, wixii saxdaana ku awaal marnaa. haddaa adi khaldan tahay oo wixii khaldana aawadatidna just wixii khaldan wixii alla wixii la imaado ku siinaa, wax alla waxaa la imaad ayuu ku siinayaa. So website iska oralia website bidana lagu noqonaysa Notion waa linkiisa waa idin soo diray. Okay, dana ay soo diray hadda ay soo diray waa. So Notion waa okay had exactly. Okay, marka full time job hadda tire full time job dadka oo shaqada xaaladaha iska adag oo iska xamaasho suuqeen rabo inay plan B meel ka sameeyaan hal option la idin banaan. Signal group kuma caawinayo. Signal group kuma caawinayo. Ana isku dayxtaa signal in aan diro weli waa keeni laasan mar alla markaa signal diro suuqa jiha kala aada waxyaabaha aan leeyahay waxaa intaqaana oo dadka badnaan ay weydiisin signal weligeed lama sheegin cid ku guulaysato, mana jirto group signal iibisa oo horumar samaysa ma jirto qof group signal ku jiro oo lacag inuu ka sameeyo dhihi karo maba jirtaba lamana sheegin meelay jiraanna ma jirto. marka waxaan rabaa inaan isla fahanno sidee suuqan adigoo full time job iyo qof xaaladaha waqtiga ku yar yahay haddana suuqii ugu faa'iidaysan kara. ani hal midaan ku dhahay life galkii joogtay waxaa jira ogow analyze qaado, set up ka qaado, trade haddii la qaatayna qaado, saaxiib trade-ka TBS ku xiro hawshaad iska wado. wax life-kan kuu dhaamo cilmi ahaan, kalsooni ahaan, set up ahaan, ka warhayn suuqa, fikirka asoo wax life kan ina imaadido dhageysatido cilmiyan iyo maskaxiyan iyo suuqi analysis qaadid jumla aqaad maahane number lagu soo qoray signals ana isku dayay inaan sameeyo laakiin waa keen hal marka dadka ay u qasabtay group inaan member chat ka dhigo ina calaamadan long position ka saarado. okay haddii trade-ka halkaas life way then as'alkan waa kaas ana la tibib kaas dib u baxo trade substitute TPS asaas ku diro qofkii qaadanay ha qaato qofkii marka qaadanay uusan qaadan. So you will see marka member chat marka fiirisid inta ugu badan waxa ku diro baantaas like waxa qaadata trade-ka halkaas buy kale kana halkaas sell kale I will mashallah so kana halkaas buy kale kana halkaas sell kale set up kaas fiiri ka waray like this is system qof markii la siiyo trade-ka صبحي morning هذا يورو يسديو كرسبيع سو قادني كل halkan ay yaalan before after koodi injiri qaabka ku imaadeen qaabka trade loo sugay intaas waa mar qofka aad siin kartid laakiin sell i buy hada trade oo koodka u qortid still it doesn't ma sameyn karo because qof cid samaysaa hore loo waayo. marka insha Allah dadaalkeen waqtigan waxaan doonaa inaan anaga isku kalsoonaan aqoonaa cilmiga aan barano kalsooni aan dhisno kalsoonida cilmiga ku leeyahay aad si alla si ugu wanaagsan si alla si ugu fiican aad u hormariso marka that's the only way aslan. So USD xamuda inay intrigi ila TV-ga ku dhowdahay so qofkii qaatay Thomas DB ila 20 ka satahayso in qaabkay inta sheekeynay qaabkay ku baxday waa qaab waxa waaye qaab entry then
baagaas igu dhaqaaqday is nice okay qofkii qaatay ambalyo laakiin ani waxaan sugayay soo laabashada 1 minute haddii ay macquul noqoto inuu zoonka noo soo laabto so waxaa garan kartaa suuqa inuu sii push gariyay so hadda kadib hadduu soo laabto marka waa wax jira ma baha like the third time so entry bixii la qaadan karaa so qofkii meeshaas ka qaatay habalyo ani kolley ma qaadan idinku idin sheekeynayo aan isla socno unbaa GU ayadana sidoo kale trade ay bixisay ayada horta already high ay saamaysay si high hore ay tagtayba ayadana similar limit ah liquidity-ga kan waa olosha then structure shift-ga kan waa then buy-ga kan waa so qaabka uu ku imaaday haddii suuqa is just like high volatile saqa cadaaladka haddaa qaadatay so anyone qof walbo labada fursad midkood qaatay hambalyo aniga banaanka ka jooga sababtoo ah saa u rabo ma dhaco wiigay ku imaadeen so wiigaasi qaabku suuqa ku imaaday qaab buy or sell ku qaadan kara mehe USD sidoo kale marka USD haddaa qaatay oo keep it hayso si carabi fleynimada jooji trade high square okay USD kan maxaa ka soo qoran USD kan iyo waxba kuma soo qoran okay USD kan jihada iska sell laakiin waxba kuma soo qoran wixii fursado la qaadan lahaa labadan ay ahayn anaa dul taagan wixii kaloo ka soo kordho ma ahan wax markaa caadiyan aniga ugu soo talagalay mana jirin ba horay saddex igu horay USD JPY CAD JPY oo antii aan shalay qaadanay taageedyadana la siiyey so ani isbuucan lixdan tiradaas ka adkeysanaya this my journal qofkii marka isbuucyada dambe waxay waqtiga soo socda la joogteen doona marka December baan ka sheekeynayay xaaladeeda leh aska warhayno okay sida ku dhamaadaan bas waxaan hadda ku darsanaa kalma jiraan so maanta khamiis ah labadan trade ah baxay haddaa qaatay yaa qaatay euro USD lamino waxba trade life ima euro USD qaatay yaa qaatay qof ka faa'iideysta ma jira buyers like intriga qaabka lagu imaaday like so aggressive like محمد عن كرة سويس وأخذت وده هيسو حكى بحين أوكي يلا هاي حاول كجرو أستاذ فتح إيمان ما شاء الله قف كل وقت من جدا ولا بقف أنت أقول الجبنة ما يفور من أنا واي وتسينو كفور ما حتى يسوى نقطة وأنا حتى يسوى نقطة ما قاعد كرت ساوي طمي لا قاعد موجود ما حتى يسوى نقطة نيفر بس ماشي already والو قرب GU.TV master thank you so much أنا لكن عندي إذا كنت بعيدا هم بلين كلام أنا بلين كتاعي أنا because GU يو مركا كي level كان دي أي وقتي أشياء كيسين المقطع هالكاسين مريسي حالا big move كان تجربنا للسمي يوريس دي كذلك على متفيري عارف إيش الكلام كين ساعة سأقول السعودية لي like محمد مجوكتا محمد مجوكتا ساكن like سأقول السعودية يقابل إنترجال أعرف مركب لايف كسوق هنا إذا لو ده أجرب okay محمد سعيد هذا سؤال أو حتى ديمانزون تيجي سها ديمانزون كان يتيجي كذا كهوس like these are markets that's why the right time the right place أداء jogging شفت يا سامي سي ما شاء الله so هذه maybe أنت maybe جمعها إلى journal كان ففرنقينا practice أصلا منه لما أنت الحوار أي يفتح journal كان وين ما journal كوابي نسوا driver حاجة نسوا رجع مثلا because link الواقع إلا ترى إنه إذا شري نسوا driver مثلا نسوا driver واكس journal notion نسوا driver واقع نسوا driver بوقي خلنا نقول سمين كتير وحاسودي جاي قيبت member chat general chat journal notion واكس خط يا رب notion كذا سود دكسين كرو دم سميسن كرو سود الله سميستنا إنسان
WhatsApp kusoo diro adigo hada Discord ka kusoo diro WhatsApp ma jirteen hay ha kusoo diraasna so maybe habeen dambe haddii aad joogtid insha Allah waxaan dul istaagaynaa fursadaha see ku dhasheen iyo sababta SLA ku qaadanay labada SLA ka qaatay horta waaba way maqan yihiin iska maqnaadaan ma hore waxa tahay in asii fiiriyo then TB SL kulli waa analyze garanaynaa okay so okay waa soo dhigaa dhan so marka namiga waa saasaan noo balaya kulli hadal badan bulsho mid kalena haddii aad sida request access ay weydiina ha emailka anu access ku siina emailka markii soo dhaca ana access ku siina sababta aad soo degsan karo ay qaybtan site-ka taga fiiri notion caaka ana soo furna simply keyga xataa duu waa ficil mid kale asaga halkan yaala okay site-ka tagaysa notion site-ka horta ko template raadi sorry okay waxaa raadinaysaa template halkaa ma aragtaa okay fiiri halkan anaa idin sheegaya EU saasaa lagu kala baxay warkeeda aan xirno maanta wax tirada ma jiro ani ahaan dad dhalinyaro EU ku faa'iidaystay geo ku jeeda allaha idin barakeeyo ani banaanka ka jooga sababtoo ah intriga maba qaabku ku imaaday nidaamku ku imaaday okay GBP audio kuma jirto listiga abtax nagara noqo template waa kan then template-ka site-kiisa waxaa ku qoraysaa trading plan like notion account soo samayso the trading plan marka u qorto trading journal I mean sorry trading journal marka u qortid site leh template ku siinaya kii ka anfac ka qaadana as fahmaysaa okay waa qoyay ani waa kii waa ka exactly qofkii rabo sida loo samaysto waa kan halkan u yaala sida loo samaysto trading journal waa kan kana ku soo darsanaysaa listigaaga marka halkan firis add halkaas so waa edit gareynaa marka linkya ku jira xataa before and after trade-ka oo aad gashin kartid time frame-ka wixii aad u baahan tahay reebo wixii ka maqanna haddii aad marka key copy ka dhaanaysid sawirka waa kan markasta halkaas ayaan soo dhigaa soo maarta sawirka waa journalka Discord ku yaala inta aad soo reebin kartid waa kuwan like ani hadda waxaan soo reebtay xataa taariikhda ma rabo pairka downloadka type-ka soo ishali baa waxa u dahay stores inta isticmaalay inta bips logic exit waxa ugu baxay LTP ku dhamaatay net r waxaan ka qabtay dad lacag ku qoray jir laakiin lacag ma qoray rules iga muwaafaqday money management muwaafaqday risk management muwaafaqday hadda waa barataan oo so midka aan access ku siinaha kaaga fiican kan ina qaadato هذه عاد original soo qaado and that's saasa loo sameeyaa ustaad aad dadkii aad kor ka saartay markii aan live coach inay kor noo sameeyaa howshooda waa wadaa laakiin hal dhib baa la kulmay zoomka screen record markii la sameeyo codkayga ma gaaray dadka that's the problem arrintaas xal u raadinaya zoomka qofkii aad codkayga rabo inuu duubto ma duuban karo codkayga ma gaaray ilaa hadda si walba isku day screen record hadda si codkayga ma duuban kartid that's the problem okay so thank you so much في سؤال كل ما كجاوي ما تنحتاج أهم جنا أسبوع عنا تضوى هلاي الله هنوع أنفع هذه وقت الإسوق ربنا إلا برين وان إذا نسوق ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So keep the consistency.